munaasabaddan ayaa ahayd mid ay ku qalin jabinayeen ku dhawaad 100 arday oo baratay maadooyinka kala duwan ee lagu barto barayfadka dugsiga Gateway ee magaalada Laascaanood. Dufcadan maanta ka qalin jabisay barayfadka dugsiga Gateway ayaa noqonaysa dufcadii labaad ee ka qalin rogatay dugsigaasi. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka dugsiga Gateway, barayaasha barayfadka iyo dugsiga Gateway, waalidiin, waxgarad, dhalinyaro, isduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo bulshooyin fara badan oo xiiseynaysa inay u hambaleeyaan dhalinyaradaasi maanta qalin jabinaysay. waxayna dhankooda halkaasi ku soo bandhigay maadooyinka ay baranayeen, gaar ahaan luqadda Ingiriiska ardayda maanta ka qalin jabisay dugsigaasi. aad baan runtii ugu faraxsanahay in annagoo isku duuban reer Gateway inaanu xafladda noocan oo kale aan qabsano, idinkuna garab aad nagu siisaan. xafladdan waa xaflad ku suntan maalin aad u weyn. maanta waa 1 bishii February 2018. xafladdan waxay ka kooban tahay laba qaybood: qayb xisaaba ama course xisaaba iyo course Ingiriisha. course-ka xisaabta ay ardayda tiradooda waxay dhan yihiin 54 arday, halka ardayda kale ay yihiin 36 arday. I'm greeting here my classmates, schoolmates, guests, listeners, audience, teachers, organizers, parents, and other respectable people around here. So all in all, peace of Allah be upon you. Salaasu banawaan madaxdayda saakay Sooria waxaan ka dhigayaa hadalkiisa guurtida suubanaabena saaka sagootinayna saatiro wallahayow mahadaada leh saragabay siciido u baryahan waan ka saahiday ma soo kayso weedhuwe halkan saarayleega inta sool ku nooloo dhanay siciidini dhow. waxayna dhammaan mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay ay hambalyo iyo bogaadin u jeediyeen ardayda muddada dheer halganka ku soo jiray waxbarashada. cilmiguna waxa weeyaan mar walba ujeedka laga leeyahay waxa weey waa bulshada inaad dhibaatooyinka ku xeeran aad ku xallisid ayaa la doonayaa. lama doonayo inaad dad wax barato shahaadooyinka sanduuq ku rido kadibna aad iska fadhiisato seexato soo toosi. lama doonayo ee waa inuu macna sameeyaa oo laga dareemaa bulshada dhexdeeda laga dareemaa. arday adduunka maalinba meel baa la joogaa. waxay la muuqataa inaad ka nasiib badan tihiin kuwa guryahooda jooga maanta, dibjiriinta ah, waalidkood ka quustay, waxba aan qabsan karaynin ama loo waayay qarash lagaga bixiyo waxbarashada inta adigu aad qaateen oo kale. haddii aad ilaahay chance-ka idin siiyey, waxaad idinkuna ilaahay ugu mahad celisaan iyo waalidkiin in aad sidii loogu talagalay uga soo baxdaan waddankana wax ka beddeshaan. barashadu way adag tahay, hirrig adag baa loo maraa, waqti badan baa loo bixiyaa, wax ciyaar lagu helo ma aha. waana wax haddii ilaahay qofka uu siiyo runtii ay tahay sida islaamnimada aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ugu mahadnaqno. maanta waxaa fursad u hesheen inaad dhegaysataan macallin Calikiin, macallin Sayid iyo macallin Boos inay hortiina soo istaagaan oo khudbada ka jeediyaan. marka waxaan leeyahay dhegaysi haboon. anoo la hadlayo marti sharafta iyo ka soo qaybgalayaasha xafladda inaanu markhaati gashanno haddaanu nahay bahda Gateway, inaanu idinku markhaati gashanno maanta inaad markhaati nooga tihiin intaasoo arday inay tahay arday ka qalin jabinaysa luqadda Ingiriiska iyo xisaabta, inaad intaa markhaati nooga noqotaan maantana ay haystaan aqoon ku filan. dugsiyada kala duwan ee Gateway ee magaalada Laascaanood ayaa had iyo jeer looga bartay inay soo saaraan arday tayo dhanka aqoonta leh, gaar ahaan luqadda Ingiriiska. waa Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Gurey, Somali News TV, Laascaanood.